السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دما شعبك الصومالي نلو بوضافها دونيدا الكجوكتان سودا وهذا هلك أنا السعودان ودفاع قراتيفي ورركي وقدم بيي أنا قصو قاريو حدود بيانات كإثيوبيا إلى الصوماليا رأسات دقمة بلد حاو دياردا إليهن دولة كينيا ودياردا قماتك أوقعة يكون إثيوبيان ayaa dul heehaabay xogaa magaalada balad xaawo si oo cabsi galiyaan shacabku aad u dhiiran ayaa banaanbax ballaaran iskugu soo baxay banaanbaxaas oo soo horjeedaan faragelinta dawladaha dariska sida Kenya iyo dawladda Ethiopia oo dhawaanahan faraha kula jirta xadgudubyo ka dhan ah darisnimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed soo dhawaada waxaan rabaa wax yar bad inaan shalay tabeen baa la idin sheegay inaan kulankii shalay ka dhacay degmada tuulada Suufta ama degmada Suufta ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ay gumaysato Maxamuud Sayid Aadan iyo groupkii la socday iyo dawladda Ethiopia iyo koox ka socotay dalka Kenya waxa ay ka wada hadleen hadalkii u horeeyay waxa qaatay wafdi ka socday dawladda Kenya oo qaybta amniga qaabilsan waxayna dawladda Ethiopia iyo Maxamuud Sayid u sheegeen in ciidamada Maleesiyaadka murtasaqiinta ah ee beerahooda dhex degan ee caruurtooda dhexdooda ku soo cararay ee laga soo adkaaday magaalada balad xaawo laga wareejiyo labana ay ogolaadaan ama inay ka baxaan ama in la daabulo ceel waaqiyo halka la geeyo ama ay meel kale aadaan maadaama ay balad xaawo iyo Mandera ay hal magaalo isku yihiin ay dhibaato ku tahay badqabka shacbiga Mandera degan ee Kenya sida la adigad waxaan ka codsanaynaa muddada ay qabanay 24 saac waa la soo dhaafay shacabkuna waa kacsan yihiin deegaanada ay degan yihiin beelaha dagoodiyaha iyo garaha iyo beelaha Koonataraanka dhammaan kacdoona ka socdo annaga dawladnimadeena ku wiiqman kartaa sida la adigad dadka naga kaxeeya ayaa lagu yiri Maxamuud Sayid ayaa marka wuxuu hadalkiisa qaatay wuxuu yiri meesha Eritrea iyo Masar iyo dawladaha fadhiyo Ethiopia waxaan ka codsanaynaa inaad ciidanna siisaan ciidanka noo qaadaan doolow noo geysaan si aan halka iskaga soo abaabulno warkaas si fiican u dhageysta si aan halka iskaga soo abaabulno waa inaad ciidanka doolow noo geysaan hadalkii marka lafay waa qaatay lafay wuxuu yiri niyow doolow anay gacanta kuma hayo doolow gacanta kuma hayo doolow shacab baa qabsaday sheergareeya dhamaantiin doolow shacab taageersan hogaamiyaha xasilinta Jubbaland Cabdirashiid Janan baa haysto waxaana u badan beeshiisa degan hal askari oo asaga ka soo horjeedana kuma dhax noolaan karo sida la aligeen anigii baa qalqiil xarada Ethioobiyaanka seexdo xaaladaydu aad bay ugu adkaatay Maxamuud Sayidow farad Allah ku furo meeshaad wax la aadaysan la aad Maxamuud Sayid baa hadal ku soo noqday Maxamuud Sayid wuxuu yiri sargaalka Ethioobiyaanka waa yahay nacaawi oo ciidanna siiyo buraha oo nagay sargaalka Ethioobiyaanka wuxuu ku yiri anigu amar uma qaba arinta ayada kulankii ka dhacay guriga Maxamuud Cali Shire ee Suufta ku taalo Maxamuud Cali Shire oo maray hore dadka Kismaayo waxay walaalayeen Barreeyraale ee Suufta ka dhacay saas oo ku soo gabagaboobay baraha bulshada marka waxa la soo galiyay dawladaha Ethiopia iyo Kenya iyo maamulka Jubbaland ayaa waxay ka wada hadleen la dagaalanka kooxaha argagixisada Shabaab iyo kuwa bulaha wajooga ciidamada dawladda si la iskaga kaashado labadooda wax noocaas ah warbaahinta Axmed Madoobe ee jabtay waxaas lagu soo qorayay iyo kuwa taageersan iyo geeyla ninkaliyaade daanweynaha ah ee gumeedka ah bidixda lagu salaamo ee aan maxtaam jartanka dhaxdiisa wax wajiga ku dhaxlahayn ee shalayto Faad Yaasiin iyo la joogay ee ku soo cararay ayaa maanta wuxuu qorayaa wax aan waxba ka jirin hadaba marka shacabka marka dagaalka degasaaka waa ismuujiyeen bulaha doolow hore isu muujis gabdhuhu mindiyahoodii bay qaateen gabdhuhu masaartoodii bay qaateen iyo mindiyahoodii inta gabadheed nooshahay in Ethiopia dalkan soo gasho gudaha u soo gasho ay qabsato waa diideen waxyaalahan kale lagu marsiyoolayo ee Masar iyo kaalay ma Masar halkan ka fiiriya Ethiopia maxaad u caayaysaa intelligence-geeda Ethiopia maysan dawlad ahayn maysan dal qangaaray oo intelligence la maysan ahayn fiiri Ethiopia intelligence-geeda Maxamuud Sayid waa caayay aad buu caayay
hadday wax garanayaan inay waxaa la rabay ay qabtaan oo gacanta ku qabtaan yidhahda waayo aad u caayaysaa intelligencegeena xogaheena sirdoon waayo u caayaysaa dowladda bane ma etoobiya garan weyda bulaxa wax joogo ma etoobiya kala garan weyda cabdirasiid janan inuu reer axmed yahay iyo inuu masaari yahay ina lillahi wa ina ilayhi raajicuun fiiri etoobiya waxay dhaheen intelligencegeena inaad cayda ma aha ayaguna waa og yihiin marka ninkan hadda dolow dadka ku laayay ee sargaalka ah tasfay baa la yihahdaa horta ninkan waa ninkii haystay xerada magaalada kismaayo ku taalo xilligii axmed madoobe iyo isdagaalayeen ciidanka beriila la soo xareeyey waa ninkii ciidanka meesha ku xaraystay xabad xabad u iibsan jiray wuxuuna toos ugu xiran yahay hogaamiyaha magaalada hareereysan eedaysane axmed madoobe ayuu ku xiran yahay si toos ugu xiran yahay ma ahan nin dowladda dhexe etoobiya iyo saraakiishiisa iyo dana etoobiya iyo waxaa ka hadlaya ma ahan raboodyada gudbiyana waaba la soo celiyaaba tamalis baa layaa tamalis baa lagu hayaa sidaa la aadigeed waxaan rabaa shacbiga halkaa degan u diyaar garoobay inay cirdigooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda difaacdaan iskana difaacdaan canaasiirta la soo adeegsanaya ee propagandada wadala wax kale hadda axmedoobe u hore male axmedoobe afka kaga soo hartay awood waa waayey ninkii dhan 14 sano dalka haystay ninkii 14 sano cashuurtii ummadan qaadanayay ninkii 14 sano ciidamada dhista ku hayay ninkii shalay kula dagaalamay ciidamada Soomaaliyeed meesha la yiraahdo Kambori ayaa maanta wuxuu leeyahay Ethiopia tasfaayo ii qabo Ethiopia ii qabta Ethiopia gargaarida haysta Kenya gargaarida haysta ii gargaara oromada maqli jiray abo bisani abbas abo nin gargaar bugaya axmedoobe abo nin gargaar bugaya ninkii dhan eena dhahaya abris baan haystaa oo barjaax baan haystaa ku hayay wuxuu baryayaa dowladda Ethiopia kaalay meeshaan iga caawiya kaalay garab isiiya kaalay wax igu tara abo wax igu tara xaaladayda waa xun tahay waa jeexday iskama celin karo ninka naftayda u socdaa waa ka baqayaa caawiya la hawla wala quwwata illa maxamuud sayidna wuxuu u laaban lahayahay oo xaduudda u wareegayo oo u seergoyska u yahay oo u laaban yahay waa madaxweyne ku-xigeen buu sheeganayaaye madaxweyne ku-xigeen axmed madoobe mukayf baa ku shidan oo gurigiisu meeshii madaxtooyadiisi uu joogaaye kani maxaa halkaan wareejinayo wiil yar baa ku yidhi basaam la yidhahdo ma nagu soo noqon lacag baad naga cuntay lacag baad naga qaaday waana qasaarisay ciidamaan dhisaa tiri qarankan ciidankoodii baan kala diraa tiri ciidankaan isku diray baa tiri waadna qasaarisay naguma soo laaban kartid ilaa aad bulaxa u keento ama halkaaga naga joog horta waa nin dibaraca ciidanka meesha jooga marka ee meesha ku haray xoogaa yaroo guntin ah oo xuseen giif wato oo ilaa iyo 20 ah 7 askari oo ninka la yiraahdo la socota staff ah oo maxamuud sayid ah oo afarna ay u keeneen oo ila cabdikariin ceel waa uga soo diray iyo saddex hor ula joogtay 7daas horta la joogto inta kale ma bilis ciidanka hawraarsamo way qof kale oo ciidan ah oo la joogo reer axmed lama joogaan cali xuseen lama joogo fiqi yaqub lama joogto talxa lama joogo ilaahu afkaaga goon cid kale oo la joogto horta ma jirto gaariga jiibka xuseen giif watay gaariga booliiska iyo 20 ka nin gunti taayarta ah iyo ciidanka hawraarsamo aad inta yihiin aan qiyaastooda aqoon iyo 7 nin oo asaga staafkiisa ah bulaha oo lagu qabsan karaa marka 7 nin waxaa la sheegayaa hal nin oo kamid ah inuu goostay oo beesha Ibraahim u dhashay oo raaceel waqaha in uu ku galay luuq intuu ka dooyay meesha markaariyay oo saa u baxay oo lugeeyay qorigiisa wixii sabax ku ritay furfurtay oo boorso dhabarka saartay buu soo dusiyay budalo kor ka maray luuq buu dalqay ninkii wadada luuqa soo taagan balaaq waxta aan helinay sirdoon aan helinay way marka arrinta saasay ku ekaatay diyaaradahan iska boodbooday arkina Ethiopia kuma dhacdo iyadoo ciidamadeeda maanta joogan meesha la garbaarey iyadoo joogan meesha la baardheer iyadoo buurdhuwa joogan inay mareexaan inta soo weerarto ee xabad ku rido kuma dhacdo qof awna niyadaada ha gelin marka hadda koora waxa la yiri niman dagoodiye ah
meel ya surguduud oo dalow iyo u dhaxaysa meelaha saadad badan loo galay marka dhankaas ka soo baxaan dagoodiyaha markaas baabuur badan baa loo galay wadada kaasi waxay dhahan Allah dagoodiyaha naxbaday dagoodiyaha jabhada soo baxay markaas uu dagoodiyaha kuma soo duulay dareenka qaabwiilka daarood marka annaga Amxaara iyo Axmedow noo soo duulayaan kuwaana dareen kama qabno dad iska masaakiin ah oo ayaga ba 4 saac loo qabtay haraadi ah tabar badan aan hayn masaakiin ah murabbiyiin ah simsaara ah aad loo haysto ducafa way annagu waxaan diyaar u nahay shacbi ahaan dadka deegaanka waxay diyaar u yihiin isdifaacaan dadka deegaanka waxay diyaar u yihiin inay isdifaacaan inay sharafkooda cirdigooda karaamadooda difaacdaan meesha wax ka soo socda mala propaganda meelaha ka wadaan propaganda waa la diiday caawa ninka maanta ninka 14 sano madaxweynaha ahay ku haya maamul goboleed ee ciidan baan haystaa ee dawlad baan la dagaalamay ee caawa kuwii asaga u shaqeynaya ee diyaaradihii Kenya iyo kuwa Ethiopia bulaha dusheeda marayo caawa soo sawiranaya soo dhigay Ethiopia weerartay ma dalka qabsataan Cabdisijaan كيف قبصده بريا عطينا نداني لما كانت كاذي قفك مركل قاعد كاذي عيب معه أو لاندر نمدي أحمدو الشجري أو عيدن كيو الشجري أو دولة نمدي الشجري وحيتها عدنا وتهاي إن دتك جبلان أول بدرسار كوها أي سندورن أي سربين مش هذا أي دولة أفريقيا كوهين وحأول أصل الله يسوع كجوجين هران كوجو الشجري هذا أدينك أجادا نمكي أنك عاو عيدن كان كسوينين والبروح عوكينا ومحمود سيد ومشان حدود دورين يبقى سنة الظروف يسلوا سوق المدن الربي وعليها إثيوبيا كنت كان غاز تصفي كنت كان غاضو إذا عندك هذا وضياء وير جروب محمود علي الشريف فيلي أوكي سدح دولة بوضع هالليس دولة بوضع هاللي حرق عندنا كوضع هاللي ملوي دولة بوضع هاللي حرق واحد وحبان تاني دي الشريعة دي يستا إلا الدولة الشرعية مع جروب محمود علي الشريف صوف تكويا لو شرعية برك اللي جيت كان قرنا صوف كيا الجروب وانا قنا جيت كيا لو ولا يغني وجروب محمود علي الشريف جروب محمود علي الشريف جيت كاس قف أنفريسنا مريحنا مجري ولا يغني بل أديكوا نك دن الدولة الشيغانية جيت كاس ولا أنفريست واقع جيت كان من أمريكا جيت كان من أمريكا بالبلاد درسدان وجروب محمود علي الشريف دورو كينا وحيلاداي والشعب كان واقع عين دافي المدرسة نقبحها ورنقبحها دنا نقبحين سما هو كل جسم بانكو سوينا وإذا دابولينا عيل واقع دقينا مركا حالات الدقان كعاد بيو دقان تهي دفاعية وحريهين واحدة ودقان كبجران إثيوبيا أنا نمسو ويرن كرتو نومنا إيمان كرتو وقت قبلتها قبستي واقع بقوي قلوين ما أنت دور وجوه نفتا wadnaha farta ku haya baqay waana la soo gaaray waana la soo socdaa waana la qaban rabaa waana la soo jeedaa waana la soo socdaa ku hayane waa ninka liya Jamaal iyo oo ah qaayno wadan oo ciidamadii qalabka sida Soomaaliya loo dhiibay oo ciidamadii iibsaday oo dalkii gatay oo asaga wadnaha farta ku hayo shalayto wuxuu u yeeray odayaasha Reer Axmed wuxuu yiri iimaada way ka diideen qadar idin kana iimaada war ku iimaan maynay dan qaayno wadanka kala jirin ku iimaan maynay ku dhahay waa ka tageen horta dad fashilmay ee Ilaahay nacay ee adduunku nacay ee dadkoodii naceen oo dulaysan dalkan waxba kama noqon karaan dadkan dad Ilaahay jecel yahay dadkuna ay jecel yihiin masiirka ummadana ay rabto wiilka meesha la diida canaana jooga iyo karaaska boona jooga wax dan waa qofkii wada unbaa iyo ummadda rabtaa waxaan dan u ahayn qofkii wada leh cid ka yeelaysa ma jirto marka waxaan leeyahay kuwa Axmed Madoobe mikrofoonada u haw ee qaylinayo wax la imaada awoodina masaaka tasfay amxaar ma ahan kaye aw awooda aad sheeganaysan marka meesha in awl balin ku hayay oo aad dana shisheey ku joogteen oo aadan waxba ahayn bay cadeynaysaa insha Allah biidnillah kariim culayska dadka saar waa laga qaadaya shirweynuhu waa imaanaya hada garbaarey abaabullah ka socdo baar dheer abaabullah ka socdo yurkud abaabullah ka socdo qasa dheer abaabullah ka socdo meesha la diinsoor abaabullah ka socdo looga soo horjeedo gardarada Itoobiya iyo duulaanka ay ku qaaday ciidanka nisa wada hadalay dawladdu ay mataqaana u socdo waa sugeynaa talabaad waxaan arkay kooxda Axmed Madoobe ku doodayso maxay tahay warqada dawladdu ay soo saartay maxay Itoobiya uga hadlayeen horta wasaaradda amniga gudaha shaqadeeda mataqaana Itoobiya madalka Soomaaliya la leedahay madal ka tirsan baa Soomaaliya yaa in la hadlo ay iskala shaqadaas wasaaradda iskale ninkani waa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga gudaha waaye wixii soo internalka Soomaaliya amnigeeda mas'uul ka yahay
وإنه مركا ضدك أي قصيصة وأسرع وحكومة وإنه كهلا وحي فورينا فارنسيها وحكى الله وزارة الرماها الدبادة كهلا يصدقوا على عنبارين يو هديو على الديديو هديو على الصور جيسانيو أيها شغل كله ساوف أفهم مركا وحول يدينا من سيرجوسة دنبيليال حدودها كله ما ليسانيو ضدك يدقان كدولان كوه أيوة عدي وعنا بقى ودنبيت هذا مركا محمود سيدنا فرين هالكار ودره محمود سيدو وحد بنا يستطيع تاريخ عاوة كوجا شيء شعبي بلد حاول جوج هالك مليون جاري الصوماليات باش من ريحان وبدن أيام عند دي جودي بنايسي أو أتقالك كي إثيوبيانا أو بنايسي وادش شعبي خفنا كمان نورو شعبي بلد حاول جوج وادش وايو هذا إريتريا كتل المامتية مصاري دي جودي بد بنايستي عند جودي بد بنايستي dadka waa la isay waa lagu xisaabtami doonaa intaas oo shacab ah dambi aysan